wax la cabo waa la waayay wax lagu tukado waa la waayay maydka laftiisa wax lagu meedho waa la waayay xaladan ay ku bohoobeen qaar ka mid ah haweenka gobolka Awdal ee lagu magacaabo Sow ayaa waxay deeq biyo dhaamina gaarsiiyeen deegaanada Sheekh Aweys iyo Jirjir ee hoostaga gobolka Awdal deegaankani oo ay ka jirtay xaalad biyo la'aaneed taasi oo saameyn ku yeelatay dadka ku dhaqan deegaankani waxaana halkaas ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha dalada Sow waxaana ay sheegtay halkan maanta anagu ilaahay dartii baan ugu soo baxnay waxaan la kulanay xaafado geeriye ka dhaceen xaafado maxaydan meydkii uun laga dhex qaaday laakiin biyaha ay dib ay u liqanayeen dadku haysaneen dadka qaarkood ciid ay ku tayamanayaan oo salaada ku tukanayaan marka waxaan idinka codsanaynaa walaalahayaga ama qurba joogaato ama qolqol joogaato ka codsanaynaa inay dadkooga tabaalaysan hoos u eegaan annaguna insha Allah hadaan ka hadalno Sow waan sii wada doonaa caawinta biyaha ilaa intaan ka gaarsiin karno tabarteeda annaga waayo cid naga ma caawinin waa waxaan jeebkayga bulshada gobolka Awdal waxaan sheegaynaa dadkooga abaaraysan tabaalaysan hoos u eegan annaga itaalkayagii shanta booyadood ayaanu saaka soo qaadnay shantiina xaafadaha qaar baaba haraadan waxaanu laakiin ummadda islaamka ka codsanaynaa inay dadkooga iyo dalkooga iyo diintoodaba u heshaan marka wallahi nimco ilaahay bay dadkaasi ku jiraan hal laga war hayabaan leeyahay gacanta waxaan isku soo qabsay waxaan isku keentay gacanta isqabsigii waxa keenay in maanta biyaha soo saarno oo dadkeena baahan waraabino marka insha Allah ilaahayga hortaayna ajri xasanad Allah inaga siiyo waxaan soo dadka muxsiniinta ee wax la baxaya in dadka masaakiinta soo caawiyaan waxaan caawinaynaa dadka harraad ku dilay ee gobolka Awdal ka tirsan ee baadiyaha degan ee wacdiga iyo abaaraha iyo dhibaatada ay haysato gacantayada aan ku dhaqaaqnay aan ku isku dhiirigelinay aan dadka yaga ku jallay marka waxa weeyaan nin waliba inuu dalkiisa iyo dadkiisa oo sida uu warhayo uga warhayo ayaan anaguna jecelahay maanta caawimaad baan ku soo deeqnay dadka Sheekh Aweys in la iyo Jirjir anaga imka iskoolka Jirjir agtiisa joogna uguna shubnay barkadii ilaahay baa deeqda bixiyay bilaadan ma bixiyaan mana aboodi karno ma dhergin karina dadka inta laga laakiin tikaraankayaga anaga ugu deeqnay waxaan leenahay qamcawla jir bay wax ku gooyaan haweenkeena gobolka Awdal waxaan leenahay sida maanta daladii gobolka Awdal aanu istaagneen iska garab qabsanay inay haweenka gobolka Awdal is wala garab qabsadaan isku soo garab istaagaan iyo ku dhiirigelinayaan anaga haween weynihii dalada waxaan halkan ka sheegayaa sida anagu hiigsa gacmaha isku qabsanay tabaale iyo talaba islaag joogno sida aan sameeyno soo sameeysiin oo dadka tabaalisan caawisiin dhulka biyaanta ka jiraan intaba soo martiin gabagabadii waxa halkaas ka hadlay isla markaana ka mahadnaqay deeqdani dadka ku dhaqan deegaankaasi annagoo haraad aad iyo aad ugu ildaran bal iska daa cunno iyo waxaanay haba yaraatay xaradu ay qaatiyaan tahay dadkii xitaa wixii daruuro u haystay wax lagu karsado waa la waayay wax la cabo waa la waayay wax lagu tukado waa la waayay maydka laftiisa wax lagu meedho waa la waayay cidhiidhi awr loogu aroori karo ilaa 40 kilomitir oo kale waad garan kartaan wax la wax ku qaban kara ma laha sida ay dalada haweenka ay naga yeelan oo kale in lagu daydo caawimo haweenka ku bohoobay daladuna way mahadsanyiin aad iyo aad u mahadnaqeynaa dalada Sow ee ku midow dadka ku midoobay haween weynaha noo soo gurmaday ee noo soo maxaydanay noo soo riday biya ee noo keenay dhamaantood way salaaman yihiin maanta biyihii si fiican bay u soo gaarsiiyeen annagoo ah Sheekh Aweys waan u mahadnaqaynaa haweenka sidaa isku soo maamulay waan u mahadnaqaynaa